way taas oo doonaysa. aniga si gudbo haddana in waxa jira qolqol joog iyo qurbo joog Burco degan magaalada u dhashay inta badan qofku reer Burco markiiba wuxuu hayaa Hargeysa markuu dhaqaale helo waa maxay sababta lagu hayaa Burco wallahi anigu waxaan ku macnayn karayaa sababta Burco looga hayaa waxaan ku macnayn karayaa kiiska oo dhan waxa saarayaan u dadkeeda Burco qolqol joogta iyo qurbo joogtaba sax waana dad u dhashay socotada baan siri Burco dadka reer Burco horta magaalada Burco oo magaalo wanaagsan oo weyn oo maciisho jaban oo haddii la yiraahdo Somaliland la qiimeeyo nolosha waxay soo galaysaa kaalmaha ugu horeeya the best environment-geeda wixii oo dhan haddana Burco qofka qolqol joogteedu ninku markuu lacag helo Hargeysa guura ganacsatadeedii iyo dadkii wax haysatay Hargeysa guurtay intii wax baratayna iyaduna Hargeysa sii tagtaa way haddaba qoladii role model-ka oo hay'adda qurbo joogta hay'adda khadar ka mid ah ka hay'adda aduna aad ka mid ahay anaa ka mid ahaa Hargeysa fadhiisatay way campaign wala bay Burco ku qaaday way oo propaganda waa qolada waa victim bay Burco ka tahay qurbo joogteeda maanta waxay la hadleen ilaahdo ka dhaxgala inaan saaxiibnimo ilaahdo kuwa ka sameeyay dhaqan jaacir ayaa kamid ah ilaahdo propaganda Hargeysa ka yimaada way cid reer Burco propaganda sidii reer Shaambo propaganda way marka victim waxay u tahay waliba qurbo joogta reer Burco way waa dadka ugu badan ee jaaliyadaha reer Somaliland ugu badan qurbaha waana dadka ugu soo dhoofka badan leh way ma yimaadaan Hargeysa degan sababtu waa maxay markaa laba sababood ku sameynaysa waa maxay sababta ugu weyn aad leedahay Hargeysa waxay soo dhaafi waayeen wallahi ma garan karayo markaan anigu qeexay research-keygii waxay soo baxday waxaan halkan ka sheegi karay aan media ka sheegi karay laakiin de ma sabayn karo anigu kama dhakhtar wanaagsana kama guriga wanaagsana kama wadooyin wanaagsana kama caafimaad dhakhaatiir wanaagsan kama waxbarasho wanaagsana oo de iskuulada the highest schools ba ku yaala waxa ku yaala cusbitaallo milyan dollar rag walba qurbo joog ay investment gareeyeen horyaal hospitaalo kale absolutely dhakhaatiir badan alamaana kamid oo deegaanada magaranaysa aad ogtahay family gale marka haddana waxa jira hudab 5 star oo waaweyn oo laga dhisay Burco rag maalgeliyay waad garan kartaa marketkoodu inay iska empty yihiin oo ay iska hawanayaan marka kule reer Burco dadka yani waxa ka daran ku guurista propagandada magaalada caynkan ahayd ee maanta iyo hawlahaas garanna maayo anigu de sababta u keentay iyo cadaawad inta leeg laakiin reer Burco badan baa jooga imiko de ay